soo dhawaada daawadayaal magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa soo gaaray ugaaska guud ee beesha Xawaadle kaasi oo maalmihii la soo dhaafay safar dhinaca dalka dibadiisa u maqnaa si diiran ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas waxa uu kula hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay odayaasha dhaqanka beesha ka soo jeeda in kulan uu dhaxmari doono maalinta biri ah 9 subaxnimo hadii Ilaahay yiraahdo kasoo qaybgalka ugaaska waxaa goobjoog ka ahaa dadweyne aad u fara badan maamulka gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka waxgaradka ururada bulshada rayidka si kooban ayuuna warbaahinta ula hadlay isagoo sheegay in loo madlan yahay biri kulan weyn oo looga tashan doono aayaha beesha degta gobolka Hiiraan gaar ahaan howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale khataraha amni ee maalmihii la soo dhaafay deegaanadaasi ay wajahayeen iyadoo shabaabku ay dhowr meel ay ka qabsadeen degmooyinka gobolka Hiiraan ka tirsan ugaaska ayaa waxa uu ku sugnaa maalmihii la soo dhaafay dalka dibadiisa halkaas ayuuna kulamo kula soo qaatay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan isagoona kala shirayay aayaha guud ahaan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale beesha Xawaadle uu ugaasku u yahay uu ku matalo guud ahaanba gobolka Hiiraan maalmihii la soo dhaafay deegaanada gobolka Hiiraan waxaa ka soconayay howlgallo dhowr ah inkastoo aanan howlgalladaasi wax miro dhal ah laga gaarin Cali Jeyte Cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ahna waa u qaybsanaha macawsleyda iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isaguna ku sugan gobolka Hiiraan waxa uuna maalmihii la soo dhaafay wada kulamo isaga iyo ugaaska si hordhacay isu arkeen oo waxa la arkayay muuqaalo baraha bulshada qabsaday oo isaga iyo ugaaska oo salaan ama ugaaska iyo isaga oo salaan kala qaadanaya ah waxaana lagu wadaa in guud ahaanba arrintan ay qayb ka tahay kulamada guud ahaan muhiimka u ah beesha ee ka soconaya magaalada Beledweyne in guud ahaan diiradda ay saari doonaan arrimaha howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab gaar ahaan degmooyinka Maxaas Moqokuri iyo sidoo kale Tardo iyo deegaano ay ka mid tahay Ceel Hareeri ilaa iyo aaga xuduuda deegaanada qaybiyo gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxay sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo maalintii shalay ahayd amaba xalay oo duqeyn xoogan ka dhacay degmada lagu magacaabo ama deegaanka lagu magacaabo Tardo oo ka tirsan gobolka Hiiraan duqeyntan oo lagu sheegay in xubno ka tirsan iyo horjoogayaal ka tirsan ururka al-shabaab oo ku shirayay guri ku yaala deegaanka Tardo ee gobolka Hiiraan lagu beegsaday kadib laba duqeyn ayaana la sheegay in halkaasi laga fuliyay duqeynta hore oo laba gantaal ahayd ayaa waxaa la sheegay in ku dhacday mid ka mid ah guriyo ay ku shirayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab iyadoo warar la sheegay ay amaba lagu qoray ay sheegeen in ay dadka dhintay amaba horjoogayaasha dhintay oo ka mid noqday gudoomiyaha amaba ninka waaliga walaayada islaamiga gobolka Hiiraan u ahaa ee al-shabaabka u qaabilsanaa gobolkaasi Hiiraan isagoo halkaasi dadka dhintay ka mid noqday iyo horjoogayaal kale sida lagu sheegay war soo baxay warkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in horjoogayaal kale ay qayb ka noqdeen duqeymahaas Tardo ka dhacay ee lala beegsaday ururka al-shabaab taas oo khasaare xoogan ay ka soo gaareen maalmihii la soo dhaafay guud ahaanba gobolkan waxaa ka socday howlgallo ballaaran oo ka dhan ah ururka al-shabaab inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya wax guulo ah oo la taaban karay aanay ka gaarin howlgalkan guud ahaanba waxaa sidoo kale ay sheegeen in dadaalada gobolka Hiiraan lagu xureynayo meel gabagaba ah ay marayaan kulan weynaha ah ee biri Beledweyne ka dhici rabana lagu gorfay rabo arrimaha masiiriga ah ee gobolka Hiiraan oo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab guud ahaanba gobolkaas amnigiisa iyo wadooyinka ay kala xireen ururka al-shabaab todobaadyadii la soo dhaafay sidii loo furi lahaa dhinaca kale markii ugu horeysay maamulka Jubbaland waxa ay war ka soo saareen saraakiishii iyo askartii lagu dilay ay dileen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay duleedka degmada Balad Xaawo ee gobolkaasi warqad qoraal ah oo uu soo saaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa lagu yiri waxaan tacsi tiiraanyada u direynaa ehelada qaraabada asxaabta iyo sidoo kale maamulka Jubbaland oo ay ka baxeen saraakiishii ku shahiiday weerarkii ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaas ku sugnaa ay soo qaadeen ee gardarrada ahaa kaas oo lagu xasuuqay saraakiil iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland
dowladda federaalka Soomaaliya xilli ay qabsatay goobihii xarumaha u ahaa maamulka Jubbaland ayaana hadalka maamulkaas uu ku soo aadaya gobolka Gedo guud ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda gacanta ku haysa iyadoo xubnihii ka tirsanaa maamulka Jubbaland guud ahaan laga qabsaday warar xogogaal ah ayaa sheegaya in ciidamo aad u fara badan dowladda Kenya xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ee xuduud beenaadka ah ay soo dhoobtay kuwaasi oo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in Axmed Madoobe ay dowladda Kenya ay ka taageerayso dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto dagaalka ka socda Kenya Cabdirashiid Janan dagaalka ka socda Soomaaliya Cabdirashiid Janan ayaa hore waxa uu ugu eedeeyay dowladaha Kenya iyo Ethiopia inay horinayaan xiisadaha isagoo sheegay ciidamada halkaasi galay ama abaabulka ka wada halkaasi haddii ay soo weeraraan dowladda Kenya ay mas'uuliyadaasi ay qaadanayso xilli dowladaha Soomaaliya Kenya iyo sidoo kale Ethiopia xiriirkooda calaaqaad ee diblomaasiyadeed uu yahay mid wanaagsan amarada soo baxayay ee ka kala imaanaya Ethiopia iyo Kenya ayaana u muuqday kuwa la safan maamul goboleedka Jubbaland ee ku aadan in ay la howlgali doonaan maalmaha soo socda xiisadaha gobolka Gedo waa ay dhamaadeen laakiin dowladda federaalka Soomaaliya saraakiisheeda hogaaminaysa ciidankan ayaa iyagu waxa ay sheegeen in ay sidoo kale Jubbaland kala qaybaheeda kale ay weerar ku qaadi doonaan maalmaha soo socdo ayaa lagu wadaa gobolka Gedo in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka sameeyo kulamadaasi oo ah kuwa lagu sameynayo amaba looga tashanayo aayaha Jubbaland cusub oo laga yagleelo gobolka Gedo taasi oo la shaqeysa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya muhiimna u ah istiraatiijiyad ahaan ammaanka deegaanadaasi in dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay rabto halkaasi ay ka fushato ayada ugu dambeyn madaxii gurmadka degdega ah ee qaramada midoobay Caaisho ayaa iyaduna geeriyootay sida lagu qoray bayaan kooban wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo warqad qoraal soo saaray ayaana ka tacsiyadeeyay geerida ku timid madaxii gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsaneed amaba guud ahaanba qaramada midoobay waxaa lagu yiri waxaa tacsiid tiiraayal loo diray dhammaan ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo sidoo kale howlihii adkaa ee ay haysay amaba ka haysay gudaha dalka muddadii ay joogtay ayaa lagu sheegay in waxyaabo badan ay ka soo qabatay gudaha dalkeena Soomaaliya haddii ay tahay gargaarka degdega ah inta ugu badan oo iyada ay ka shaqeey jirtay sida lagu sheegay warqad qoraal ah oo Daawud Aweys Jaamac ku saxiixnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya dhanka kale xubno ka socday UNSOM ayuu la kulmay waxaana laga wada hadlay xoojinta iyo xiriirka dhinacyada iyo sidoo kale sidii gargaarka dalka loo sii laba jibaari lahaa waxyaabaha diiradda la saarayna waxa ka mid ah howlgalka ka dhanka ah iyo sidoo kale UNSOM waxyaabaha uga aadan horumarada dhinacyada adeegyada xasilinta iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro al-shabaab saaxiibayaal wararkaas wixii ku soo kordha wararkeena dambe iyo warbixinadeena dambe ayaa sidaan kale ugu daawan doontaan kuma sanadiin daawo